السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا جنال كينا موهيستن جنال maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa mowduuc cusub oo ku saabsan sidee qofku u noqon karaa qof la jecel yahay oo la ixtiraamo. runtii qofka markuu is ixtiraamo oo qof muxtaram iska dhigo hadalkiisa miisaamo wuxuu dhahayana ka fiirsado intuusan oran ayuu noqdo qof ixtiraaman balse ma ahan inuu doono ixtiraam asagoo karaamadii iska qaaday. hamoodin qofka inuu dhasho isagoo la tixgeliyo ama la jecel yahay laakiin wax la kasbado lana gaaro. ma rabtaa inaad noqoto qof la tixgeliyo oo la jecel yahay haddaba isku tarbiyey sifooyinkan soo socda. badi dhool cadaynta iyo waji furnaanta si run iyo daacadnimo ku jirta u ammaan qofka u qalma adigoo ka maran la wajiilnimada. ka fogow muranka iyo dooda badanba waayo waa bilowga canaadka colaadda iyo kala go'idda. ula dhaqan dadka oo dhan sida aad jeceshahay in lagula dhaqmo. iska jir qalbi adayga iyo calool adaygaba waayo waa sifooyinka doqonnimada. marka aad fikrad soo bandhigayso qofka dareensii in ay tahay wax aad wada leedihiin oo aanad ka fariidsanayn kana caqli badnayn. iska jir isla weynida tusna dadka inaad tahay iyagoo kale heerka aad doontaba aad gaadhide waayo rabbigeena subxaanahu wa tacaala ma eego qofka isla weyn qiyaamaha. badi saamaxaadda iyo cafiga waayo waa nadaafadda qalbiga iyo naftaba. marka aad qof waaninayso ilaali dareenkiisa oo ha ku oran erayo dhaawacya qalbigiisa iyo naftiisa toona. caawi oo garab sii khayrka marka ay ku baahan yihiin waayo rabbiga baa ku kaalmayn doona maalinta aad baahato. iska ilaali dhaliisha aflagaadada iyo nafsiga badan waayo kelmadda xumi qalbiga ayay waxyeeshaa. waxaa laga yaabaa in ay colaad iyo nacayb isku beddesho. habadeen qosolka aan habboonayn waayo qosolka aan macnaha lahayn haybadda iyo degnaanta ayuu kaa qaadaa. isbar dulqaadka iyo adkaysiga waayo waa laba sif oo rabbigeena iyo rasuulkeena ay jecel yihiin. ka faa'iidayso waxyaalaha wanaagsan ee hareerahaaga yaala. halkaas ayaan kusoo gabagaban doonaa mowduucayna maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.